السلام عليكم أصحابتي وأولا شينا مولا سكوكين أم مركل إذين سونو قتة فضلنا هدايقو عصبتهاي سبسكرايب يرسار قنبلال كنا ريحو سو فيديو والبوغو صورة عدنا أصحابتي داقود من نقطة لايك كومنت شير أصحابتي ما انتا وحا إذين سو سميي ليف ليفو وأجدين ما شاء الله ليف ليفو بوتشيو بس كيسا والله ما شاء الله سو معانا كل أصحابتي انتا ساني سو سميي مانتا سان سو سميي oo fudeedka badan leh oo basiidka macaankiisana laga yaabaa asxaabteedii waa idin tusayaa ila socda soo asxaabteedii waxaan soo qaatay waa digirta bajiyaha aan soo shiiday soo zaaid iyo kaaga shiidmin waxa la rabaa kasto inuu kuskushiisto asxaabteedii biyaan ku shubayaa soo waxa la rabaa inuu khamiiro ugu dambeyn after 5 hour amal ama 5 saacadood kadib وأجدين وساق قمير أصحابتي إن عن دخاروا سو وسخ داستن ولا جبحنايا سو ديجر تكلي جد نسولة عدان تدا على روا أصحابتي إن شاء الله أصحابتي وأشكو سو نقوم دونا أصحابتي حتى نوحن سمينايا عم به وأجدين لو حب عم بسو خاطئ لو حب عم بمسكوته واي soo laga maro inuu jilic ka noqdo ama macaan ama inuu adeeg dhanaan ka noqdo waxa la rabaa maskooto soo waa fahmi kartiin asxaabteedii ma sha Allah hadan cambihi aan soo googooyay waa isku soo noqone oo u jeedin sidaas u jeedina u soo googooyay waaweena ma ahan yareeris ma ahan dhaxdhaxaadkaas laga rabaa ina u soo googooyso asxaabteeda soo isla sii soconeena digsiga soo qaatay dabka soo saartay wax dhan ma ku shubin waxa ugu horeey aan ku shubay waa cambaha kaligii oo u jeedin asxaabteedii dabka xoogaa ka gaabso soo inaka hoos kaaga dhiga macquul ah waxaan ku darayaa waa bakeeri biyo oo u jeedin biyaha waa badsanaya soo adi cambaha inta karsinaysa ada og biyaha waa ku shuban kartaa laakiin aniga qiyaas ahaan laba xab cambaha daaw karina intaas oo biyo ku shubanaya waa 2 galaas laba oo bakeeri oo half biya waxa kale ku daraya asxaabteedii waa raqaygan aad ugu fiican yahay soo asxaabteedii hadda blade shidni ama leelefoosa u taqaanid hadaba karsinaysid ku darsan raqayga ma sha Allah kaga dhiga macaan ku dhac asxaabteedii san hadda leelefoogaad u karstid ama shidnigaaga waa hubaal asxaabteedii waad ku dheefi doontaa waxaan wataa waa 3 xabo oo yaanyadeen dalka Soomaaliya caadiga yaanyo maruley soo taqaanidba waan soo macnaha gacanteeda ku burburinaya ama ku jijibinaya saa u taqaanid kulli waa ku soo shibay asxaabteedii 3 xabo la iska rabaa waxaan kaloo ku darayaa waa cusbo soo qaando yara isticmaalaya maanta cusbadana adaa og dhanaga inta rabtid laakiin aniga 2 qaando iyo half oo cusba ku darsanaya cusbada shiidan waa mid waaweynta daaysto isticmaali kartaa soo wax ka celinaya male cusbo waa cusbo asxaabteedu waa kay 2 qaando iyo half ayaan ku soo shubay waan daboolaya anoo wax qaando aan gelinin waa kay ugu dambeyn uu soo karkaray asxaabteedii hadda qaando waa qaadan karaa soo waxa rabaa midka hoos jiro ina kor soo marsi midka kor jiro ina hoos marsi asxaabteeda soo isku gaagaaro waa kay ma sha Allah waa soo gaagaarsi asxaabteedii hadan daboolkiisa ku celinaya ma sha Allah asxaabteedii waa kay digirtii aan soo nadiifiyay oo u jeedin ma sha Allah daay iyo hada farqiga u dhaxeeyo asxaabteedii waa kay ina shiidan waa rabaa soo makiinadii shiiditaanka soo qaatay waan shiidayaa oo u jeedin hada ma shiid maaso waa qaleel waxaan doonayaa waa biyo hada u heshid waa shiidi kartaa biyana isaga badinin asxaabteedii marnaba waa kay 2 xabo yaanyo caadi ku soo ritay biyeenina waa kay oo ku darayaa soo iyo kaaga badanin jileec uu noqona soo hal farsaman waa nii sheegaya asxaabteedii haday dhacdo lacala inuu bajiyahaaga uu biyo ka noqdo ama uu ka jirco asxaabteedii bur caadi soo qaadane
waa ku adkeyn kartaa laakiin inta la gaarin ka taxadir inuu biyaha kaaga badanin asxaabteyda bikii aadani jeclahay soo waxa aan sameynaa inaan soo gudbiyo aadan u jeclahay waa ka ugu dambeyn asxaabteydii waan sidaas u jeediin oo jileec badan leh oo igu soo shiidmay maasha Allah asxaabteydii waxaan ku darayaa waa tuun soo dadka qaar way ku korshiidaan laakiin aniga tuun caadi ah u soo garaacday waa u jeediin asxaabteydii aniga bajiyahayga waxa ku darsadaa sirteeda aan sheegaya waa baking powder soo bajiyaha asdhan kuus soft ku sii naqanaya asxaabteydii waa kayahe leefleefoogani oo jeedin inuu xoogaa biyo ka soo gursaday soo laba farsamo isticmaalaya insha Allah isla socon doona inta aan jijibeen ka hor waxa rabaa inaa xoogaa meeshas ku rito oo qabo hilibkiisa micnaha qofka suusan uga tirmin waxa rabaa qofka dhoot amal markuu cuni karo midna inuu ewer ka yahay midna uu hilibkiisa ku dhagan yahay oo cuni karo soo asxaabteedii sorry aadan yiraalgeena bikii codku waa iga xiran yahay hergab waa jira asxaabteedii Allahna caafiyo inta jirin dhammaan asxaabteedii inta kale waa kana waa soo jijibiye soo waxa ku darayaa waa biyahaas aad u anfacaya marka labaad aan isticmaalaa waa biyo soo midka waa jijibiye uu dhage waa ka asxaabteedii asiga dhan waa kala furfuray leefoogeeni ama shidni sa u taqaanid qofba si u yaqaanaa asxaabteedii maasha Allah waa kahay kan wuu ibad qaba kaasna ma soo jijibiye asxaabteedii hadda waa isku darsan karaa soo maasha Allah asxaabteedii marka kadib maxaa inoo dhiman waa arki doontiin insha Allah asxaabteedii halkaas waxa ku soo shubnaa waa burkeena caadiga qaadada yara isticmaalaya soo laba qaando waaweyn waxay u dhigmataa 4 qaando oo yareereys asxaabteedii waxaan kaloo ku darsanayaa waxa muhiim ee burkaas qaado soo maasha Allah waxa ku darsanaa waa saffraan midka jaalaha baa soo kala badan u leeyahay laba qaando ku darsada waxaan kaloo ku darayaa waa biyo xoogaa biyo inuu adeeg ahaadan marro inuu jileec ahaadan marro burkan iyo burburkaan qan asxaabteedii sidaas u jeedid u qas gacantaada ugu fududay waa ka ugu dambeyn asxaabteedii leeshahaas ka soo dhigay waa u jeedin maasha Allah marka kadib waxaynu inoo soo dhow yihiin asxaabteeni waa ka leefoogeeni wuu soo badbaday maasha Allah waxaan kaloo ku darayaa soo waxa la rabaa in gacanta ku haysid kaas labada gacan isticmaasho muhiim soo ina hore ka walaaqda laga rabaa hadii kale kuus ka yeelana waa muhiim soo waa u jeedin wow hal mar ayuu kalarkeena isbedelay maasha Allah asxaabteedii indhahan uu ka deeqa inta aadan cunin ayuu indhaha ka deeqa maasha Allah soo waa kay marka kadib wax dambe ma u baahna asxaabteedii soo hadda xoogaa bura ku daray dabka inuu helo waa muhiim dab dheeraad xoogaa dabkana ma dheereyna marka gaabinay mid ala ka dhigay asxaabteedii hadda wuxuu ku karsanaysidna waa dareemi kartaa midalka uu ku saabsan yahay dhuxushaada soo iska yareynay haduu ka badan yahay haduu ka yar yahay midala ka dhigay asxaabteedii waa ka maasha Allah ugu dambeyn xoogaa biyo ku daraya waa ka biyaha wuxuu u baahan yahay soo waxa ku daray bur inuu xoogaa ku karkaro burkaas xoogaa bislaado waa muhiim asxaabteedii waxaan kaloo ku darayaa waa cusbo soo inay dhanaan ku yariyaa dareeme cusbo ku daraya kadibna waa daboolaya insha Allah isku soo noqon doona asxaabteedii bajiyaheeniya dubaya soo noo soo qamir maasha Allah oo u jeedin asxaabteedii bajiyaheeni akahe ugu dambeyn asxaabteedii bajiyaheegii sidaan u jeedina u soo sameeyay kooskiisa maasha Allah soo ani bajiya yar waa nacba midka waaweyn kooska ee am jeclaa asxaabteedii waa ka qaybta labaad ku shubay asxaabteedii
waa soo dhameeyay asxaabteydii maasha allah. Waaw, ugu dambeyn bajiyaheeni waa kaay saxankaasaa kusoo shubtay asxaabteydii. Asaa iga ag dhawaay jaanis kale waa u heli waaya. Asxaabteydii waa kaay bajiyaheeni waa kusoo shubtay. waa isla arki doonaa bajiyi waa kaay waa ujeediin maasha allah. asxaabteydii waa kaay bajiyaha iga leexi waaye. baaquliga soo qabso midkaana keenso xagga saaro saa u sameeyey saxanka ugu habeyni waa idin tusayaa. asxaabteydii waa kaya shidnigeeni waa kusoo shubtay waa ujeediin kuleelkiisa inuu baxaayo asxaabteydii maasha allah. haddana meesha waa laga dejinayaa. meeshaas booskaas nina iska leh waxaa iska leh micnaha bajiyaha ka wadaa. bajiyihii waa kaay waa soo saar asxaabteydii dhexdii waa kaay maasha allah. asxaabteydii waa kaay sidaas ujeediina kusoo sameeyey asxaabteydii maasha allah. waa kaay shidnigeeni waa kaaya bisbaaskeeni waa kaaya bajiyaheeni waa kaaya maasha allah. galabtana galab adduunya ahayd alxamdulilah caafimaad waa ku cunay asxaabteydii. idinkana waa idin soo niyeystay waa muhiim indhaha ka arkeysin niyeysigana waa qaadinaysiin asxaabteydii. insha allah kheyr badan isku ognahay asxaabteydii. video xigo waa walaashiin Amula Cooking oo sidaas idin tagayso kheyr badan. bye.